sideed shay oo qofka bini aadamka uusan gadan karin lacag kasta oo bixiso sideedan shay ma iibsan kartid haddaad haysatid ilaahay ku mahad alxamdulilah dheh gacmaha alla u taago kow asixa caafimaad lama iibsan karo waxaa dhici karta qofka bini aadamka ah inuu caafimaadkiisa ku dhumiyo oo ku baabi'iyo suu lacag helo laakiin markuu lacagtii helo inuu hadhow lacagtiisa oo dhan ku bixiyo suu isu daaweyn lahaa haddii aad caafimaad qabto ilaahay ku mahadi tabaaraka wa tacaala qof bixiya ma jiro lamana iibsan karo isbitaal lagu iibiyana ma jirto saddex jacaylka lama iibsan karo haddaad wax kasta bixiso qofku jecel ma iibsan kartid haddaad hesho qofku jecel marka alxamdulilah ilaahay ku mahad haddaad arto qof aad jeceshahay ama ku jecel ilaahay ku mahad sababtoo jacaylka lama iibsan karo meeqee qof kala raadinaya oo la sababtoo qofka kalaan jeclayn qodobka saddexaad sacaadada waxa la yidhahda lama iibsan karo sacaadada waxa weeye in aad ku noolaato farxad iyo happiness happy aad ahaatid ma iibsan kartid dhismo weyna badan intaad gadato waad degi kartaa laakiin inuu gurigii dhismihii noqdo home meel guri ah oo deggan oo aad ku raaxaysato oo sakan ah lama iibsan karo qodobka afraad waxa la yidhaha raaxatulbaal raaxatulbaal waxaa weeye niyadaadu inay deggan tahay oo qalbigaagu deggan yahay ood qalbi qabowdahay lama iibsan karo walwalka iyo murugada dadka qaba ayaa og dhibaatada ay ku jiraan haddaad haysato qalbi degganaan niyadaadu oo deggan qanaaco qabta allahaaga ku faraxsan ilaahay kuma hadi qodobka shanaad waxaa la yidhaahdaa nasaahada waxa waaye waa daacadnimada iyo niyad wanaagga iyo alla dartii inuu qofku wax u qabto lama iibsan karo laakiin qofkii ilaahay siiyo ilaahay buu ku mahadiyaa nicmo weyn baa la siiyey qodobka lixaad waxa la yidhaha alakhlaaq lama iibsan karo akhlaaqda wanaagsan haddii ilaahay uu ku siiye akhlaaq wanaagsan ama uu dad akhlaaq wanaagsan la saaxiib kaala dhigo xiriir kula sameeyey alxamdulillah ama carruurtaada akhlaaq wanaagsan hadduu alla siiyey lama iibsan karo nebi maxamed baa ilaahay wuxuu ku manaystay oo uu yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq wanaagsan baad ku dul sugan tahay nebi maxamedow fiiri akhlaaqda cajiib waa qofka inuu xumaanta ka leexdo oo wanaagga u leexdo oo uu xishoodo oo afkiisa ceshado oo uu dadka iska ilaaliyo oo carabkiisa dadka ka dhowrto oo dadka uusan ku mashquulin markaad dadka iyo ceebahooda ku mashquusho waxaad ogaataa ceebahaagii baad far waaweyn ku qoraysaa si lagugu mashquulo maalmahan waxaa badan xan dadka waa isxamanayaan subxaan allah waa isxamanayaan ilahi wuxuu le walaa yaktab bacdukum bacdaa war akhlaaqdii wanaagsanayd ee diiniga ahayd yeenan marra ka tegin qodobka waxaan sheegay kow sixada iyo xubbiga iyo sacaadada iyo raaxatulbaalka iyo nasaahada iyo akhlaaqda wanaagsan waxaa qodobka toddobaad waxaa weeye alcilm atacliim tacliim lama iibsan karo cilmiga lama iibsan karo haddii wax allah ku baray waxaad ogaataa qofka dadka ugu qiimaha badan ee alla ugu dhow waa qofka cilmiga leh ilaahay baa yidhi tabaaraka wa tacaala innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa allah waxaa keliya oo ka baqa sida dhabta ah addoommadiisa kuwa culimada ah subxaan allah kuwa culimada ah marka haddaad cilmiga dhabta uhna waa alla ka cabsiga haddaad cilmi kasta leedahay oo qur-aanka xifdo oo tafsiirkii taqaano oo xadiidkii aad taqaano oo aad axkaamtii garanayso oo naxwada aad garanayso oo wax kasta aad kitaab kasta akhrin karto laakiin aadan alla ka baqaynin cilmi ma lihid jaahil baa tahay nabiyullaahi nuux markuu alla canaantay oo uu yidhi innahu laysa min ahlika innahu camalun saalix falaa tas'alni maa laysa laka bihi cilmu waxaadan cilmi u leedahay weydiiyey innii aciduka an takuuna min aljaahiliin وحي قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين هولو آذن إلهي وإدرسني هدان قلو وأنا علمي أولهي جاهل معنا هدان معسيو يا حمان يا جاهل لمو يا عي يا حن يا ضد كبر شقين يا الدنيا تكون مشغول سنتهي علمك الصاد لهي جاهل معنا قالوا قدام الاستعداد الذكاء مستحضر بدن اللي هذا فهمه لما يمسكره hadduu ilaahay ku siiya carruur fahmo badan ama fahmada uu ilaahay kuu furay
ilaahay ku mahadin walaalayaal waxaa la yidhaahdaa qofku way sahlan tahay inuu biildin weyn ama guri weyn inuu iibsado laakiin inuu ku nasto oo ku dego lama iibsan karo way dhici kartaa inaad cunto qurux badan karsatid laakiin inaad cuntadii intaad cunto aad u haysan niyad aad ku cunto ma iibsan kartid waad arkaysaa dad ahaya oo teedka iga xiranoo cunto ma cuni karo way dhici kartaa inaad sariir qurux badan gadatid oo aad guriga sharxatid oo dhigatid laakiin inaad ku seexato oo hurdo fiican hesho ilaahay baa bixiya lama iibsan karo